Harris Qiro Channel. like subscribe walba video aan ka sheegayo hadda horumarina waan dhaaranaa kitaabkan ku dhaaranaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh wa salaamantiin dhamaantiin meel kasta adduunka ka joogtiin waxaad ilaahay wanaagsan videogan waxa waaye video xamaasadiisa iyo wax walba wato waaye videogan anaga intaan soo fadhiisanin ka hor wallahi been meedin sheegay ani laba rakac soo dugti maxmuud laba rakac soo dugti gacanteedana waxa ku jiro kitaabka ilaahay wax walba video aan ka sheegayo hadda horumarina waan dhaaranaa kitaabkan ku dhaaranaa wax walba si ilaahay la ogyahay aan u sheegaa midda kale yani maaha waa ogahay social media inaysan maxkamad ahayn laakiin arinta waxay gaartay heer meeshii ugu dambeysay sax ma fahmaysaa sax marka ma ahayn in meeshan la keeno laakiin sidii dad badana ku wareera arintan yani dad badana falanqeeyay dad badana seerabaan yani nin walba fikradiisa ku soo bixiyay sidaa loo cadeeyo annagana wixii ana ognahay ilaahana la og maalinta qiyaamana waa la imaanaa maalin oo yawma laa yanfac maalun walaa banuun waa la imaanaa oo adi iyo adoo qaawan dhididkaaga nin walba sidii ilaahay uumay waa la imaanaa haddaa yacni oo annaga wax qaldan sheegno siday wax u dhaceen aanan u sheegin maalinta qiyaama imaanee kitaabka waa kana maxmuud wallaahi billaahi tallaahi ilaaha i jeedo hadalka aan sheegayo haddii hal been aan ku daro maalinta qiyaama aa laysoo istaajinaa ilaahayna waa ii jeedaa ilaahow kitaabkaa ku dhaaranooyaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan sheegaya waa run adigana waxaa ku dhaaranaa gacanteeda waa xoogaa waa arki kartiin waxaa ku dhaaranaa waxaan sheegaya hal oo wax oo beena inaan ku dareen kitaabka ilaahay quraanka kariimka waa arkaysiin marka kitaabkan inta video aan dhameynayno intaas noo yaala wax beenan sheeg marabna anaga horta sheekadan waa la socotiin dhamaantiin qof aniga xaaskeyga ahayd sidoo kale waxaan u haystay in ciyaal ay dhalin sidoo kalena madax banaan tahay arintan markii ay social media saas soo gashay aniga saa idin sheegay waaye marka hore saa idin cadeeyay waaye gabadhan marka hore aan shukaansan jiray aan isbarani wax ay ii sheegtay ciyaal inay leedahay nin ay kala tageen ama asqabi ma jiro ilaahan ku dhaartay ilaahana ii jeedo sidoo kale waxaan arkayay dad badan dhahayaan kamaal gabadhan waa sixradi horta qof ilaahay ku xiran sidoo kale ilaahay yaqaano sixir iyo wax mala awaal ah wallahi inaas ku dhaqaaqayn aan hubaa aniga kaba soo qaad yani qof yani wax iska dhahawaay ha xaqiiqada may horta waxayna ka dhaharaa taas sixirka haddii aas noqdo ma hadaas ma ku saabsan shahaado zuur yani qof waxa ogeen qiila waqaala qof aa ku soo dhahay ama qof aa ku soo tuhmay qiila waqaala yani ahadiista iyo kutubkan wuxuu sheegay waa ogtahay si fiican waqaala ha ana ma kula xisaabtamay ninkan ma kula xisaabtamay yani adi ilaahay sax waa marka su'aasha waxay taagan tahay ma gabadhan kamaalow adiga ma ogeed oo inay xaas tahay ama la soo furay ama ilma ay leedahay ma ogeed wallaahi oo billaahi oo tallaahi aniga ma ogeen sidoo kale sheekadan hadda in aan la soo fadhiisto anoo wax walba xaqiiqsaday waxay noqotay in anaga raadino xogyaal badan rasmi ah haddii ay noqoto gabadha familkeeda baryahan dhan anaga wallaahi been meedin sheegay ma seexanin ani maxmuudna xali dhan ma seexanin anaga waxaa raadinayna keliya xog rasmi ah xog xaqiiqi ah waxa la noo sheegay kulley waxaa la lahay 100 qof been ma isku raaci karto masti hal eray ma isku raaci karaan hal eray ma isku raaci karaan marka wax walbo ku saabsan xogta aan helnay maxmuud ka sheekeen doono sidoo kale anigana wixii hadal gadaal aan ka dhigi doonaa marka maxmuud aa u wareejinaa wallahi been midin sheegay video aan duunan balakoonka joognaa dhaxanta dhacayso wallahi ma maleysan kartid sababtoo gudaha mugdi waaye nalkiina waa naga halaabay marka hadda aaraba maxmuud inaan u wareejiyo waxa ilaah la ogyahay as ogyahayna anigana as ii sheegay aan ku raacay asiga ka waramaayo soo dhaw maxmuud Soomaaliyeed meel walba joogto dhamaantiin way salaamayaan horta arintan cirka isku shareereysay dad badan يعني Soomaaliya oo dhan ba dheh way ka soo hadashay xoogaa waxa waa dhaxan zaid ah jirtay xoogaa jaakada iska soo bedelay horta sidoo ilaahay ila ogyahay arinta uga hadlaaya kamaalna
يعني waa la hadli karay arinta waxaa sameeyay horta anaa sameeyay xiriira waxaan sameeyay inaa yani dadka ayada relative keeda ah inaa xiriir la sameeyo oo yani raadiyo habeenkii aana seexanin marka Kamaala u bandhigay marka Kamaala waxaan dhahay arintan saan loogu hadlayo marka ma adina raadisid information marka wuxuu dhahay gabar ani yani idahooyso oo dhaariyay oo ani idahooyso yani ma qabo يعني mana lay qabo ciyaalna ma dhalin يعني gabar waa og tahay cidlama ugu tagaa way dhahay marka ani marka danta waxay u qasabtay in aan raadiyo kaligay marka ani iyo waa badneen ani iyo marka yar kale oo walaalkay Maxamed la dhahay asna waa raadinayay dhinaciisu ka raadinayay marka information wax badan ay istutusnay dad marka Facebook ay dad ayada u dhadhow Facebook dad mar hore isla hadashay Facebook waa jira dadka dhan waa arkeen marka dad ayada comment ka bixisay dadkaas aan raadiyay mustaqaaniin aan lahay ilaahay ma kula og yahay dad ani waxa raadsanay oo mas'uuliyiin ah marka ilaahay ma kula og yahay wuxuu dhahay ilaahay waa ila og yahay hadaa rabtid waa sheegi kartaa yani wax la qarinayo ma aha hani inay wax dhashay ciyaal ay leedahay wax dhan waa jiraan hadana waa ka soo tagay nin kale waxa helay adeer asna la dhahay Ismaaciil Afro soo ii sheegay nin wanaagsan ah si wanaagsan wax ii fahansiiyay gurigiisa ku soo kortay gurigiisa oo yani ay ku soo aroostay ay ii sheegay aan arintii waxa ila sii noqonayso hurdada waa iga sii tageysay ma fahantay ilaa hadda ma seexan sidii xalay ilaa hadda marka arintii waa yani arintii meeshii horta xaqiiqada meeshii ka soo baxaysay dadka dhan been hadana walaasheeda la hadlay way ii sheegtay eeda kala jirta ayadana Canada joogto oo ayada habareerteed فرحيميا فرحي إن لدها يوم علينا فرحي ما وريتك والله هذا شيء أدنى أنا لهذا فرحيا لهذا وحال هذا إيدو حنبرو إن لدها يوم علينا أيضا عنبرو لهذا وحيد لن قف يعني هدو عيال لماذا كوي قاني حتى وحا كل ديليس وشيء قايا ما فهمتي مرك وح عقلي قلع على الربع مرك دمبه أرنتي مرك أساس وقاعد عداتي كمالا مرك وحان دهي نيو هرت والله وكاشكي أنا وحاس دهي كمال أرنت مثل أوجين والله وبالله هبينا كربسنا إن أنا إسلو يا محمود ما وقع قاعد سين مركي يسينا أنا مركا ما يا ilma rajisoo kala xarag ku xiran yahay aniga inaan guulis Maxamuud aqli loo baahan yahay ma sax waaye laakiin hadana waa raadiyay hadana yani dadkii kala familygii kala waa isoo xiriiriyeen waa isla hadalnay dhowr mar isla hadalnay yani kool dheer waqti dheer waa wada hadalnay wax waa isfahansiinay markii dambe xitaa aan waxa u fikiray xoogaa maskax ahaan ma loo haystaa markii dambe arintii dhanaaso yani arintii dhan markaas soo ogaaday marka waxaan dhahnay Kamaalo saana jirto arinta dhanna waatana hatta adi indhaha istiraysid ma sheegi karo faame waxa familka hooyada aabaha ku dhaheen adeer iyo dadkii oo YouTube soo la soo fadhiisanayo arintiina saan ay tahay cirka isku shareeraysay arintan fiiri arintii marka Kamaala ku soo wareejiyay Kamaalkii marka waa fahmay Kamaalkii ama kaaga noqotay waay marka ani yani waay isaan u sameeyay oo bilaabay markii uu dhaho ani igu sameeyay waay marka ayadii marka waa la xiriirnay marka arintana waxay tagtay serious ma fahmay dhaar ay tagtay wax walbo yani magac ilaahay ka weyn dhaar ay tagtay arintii marka xaqiiqadii wixii aan soo ogaaday informationkeeda hadda wax aan la sheegi karin yani xaqiiqooyinka dhan waxa jirto wax oo family issue ah oo waliba top secret ah marka soo ogaaday ayadana aan la socodsiiyay ay fahantay markii dambe yani alxamdulillah afkeeda ka qaratay ma fahantay marka Kamaalna markaas meeshaas ku qancay marka arinta Kamaala u sheegay arintii marka ayada gabadhii afkeeda ku qaratay marka Kamaala marka waxaan dhahay arinta ka hadal marka ina ka hadashid ay sheegtid waay wixii bayaan yani wixii oo aragtay ilaahay kula og yahay صح وأنا وحن قرن ما صوبته حتى فيديو عن دور دقيقة دوين حتى نص ساعة منهم دقيقة دوين كدب بس مركي فيديو وعدين تو نشوف ريسك وحلا قرنا يمجرو لكن مركي هره خفك عليك حاس كاجة عديس كله أنا علم مدلين واللي يحب سومرين وأمينين صح إلى خوف كان مركاش كاسيت وجي مؤخر محمود هذا أنا مدة كلا دتك فانسينا جرتو مركا
la dhahayo qofkan yani hiblaayo wasaana ku samaysay yani ma dhihi karo yani adoo qof weyn ayna dhahdina yani ma wanaagsaneen laakiin si wanaagsan wax waa loo sheegi karay laakiin yani waay qofkan hadduu dhihi lahay waxayse babligu soo dhigtay arooska ma qarsaneen nikaaxa ma qarsaneen arintaas shaki waa dhalin kartaa ase xitaa shaki waa ku dhalin kartaa inaa ka yani taas inaa xisaabta gelisay ahayd qofkan waa shakin karaa cadeen tus wax itus itaabsiyaa jirto cadeen tus waatana cadeen laakiin haddaa dhaho yani qofkan asaa dhalay asigina ku dhahoy ma dhalin yani confuse aan noqonay ma fahantay marka arintana waxaa fiican markay xeerkan oo kala marayso oo ay marayso itusi oo itaabsi marka ma la rabo inaad dhahdid yani ma loo baahneen marka adna yani waa kuu garaabaya yani wax yani oo ciyaal qof yani ciyaal dafirayso yani xoogaa waxa noqonaya wax la yaab leh dadka dhan ay la yaabayaan oo qof bini aadan sameeyeen kullay wixii ku kalifay anaga ma sheegi karno laakiin xaqiiqada markaa soo ogaanay yani wax laga talaabsan karo maaha wax laga socon karo maaha wax in dadka loo bayaanay u baahanna waaye sidaa la ajligeeda u soo fadhiisanay oo arinta sida saxda ah u jirto oo ani ilaahay ila og yahay ninkana ilaah ula og yahay marka idin la soo gudbinay marka intaas wixii ka dambeeyo marka ani wax la dhihi karo ani ma aqaani marka Kamaal ay u taalaa horta intaas wixii ka dambeeyay Maxamuud dad badan la hadlay dad badan wax u cadeeyay ilaa haddana waa isla xiriirayna ha aniga laakiin hal qof aan la hadlay hawreerteed maama hawreerteed maamadaas ma sha Allah si fiican ay wax walba iigu bayaanisay maamadaas wax walba markay ii sheegtay waxaan xaqiiqsaday marka hore koow aan xaqiiqsaday ilmaha in ay hani dhashay markii aan la tagina kadib oo dhaar iyo kitaab ay isla gaartay waxay ii cadeysay ilmaha in ayada ay dhashay kadib maamada aan weydiiyay sababtoo qof ciyaalkiisa ingiriis ka galay waxa leeyahay qofkan si maskaxiya ma loo haystaa wax ma haysto marka maamada aan weydiiyay maamada waxaan leeyahay maxaa ku kalifi karo in ay dafirto ciyaalkeeda maamada waxay dhahday wallahi ani ma ogay dhahday laakiin waxa huwa ay dhahday in ay ciyaalka ayada dhashay waan laga yaabaa ay dhahday marar badan ninkaas in ay khilaafkooda badnaado ani si ayday dhahday way hal been ku daray family qusaysa inay sheegana ma fiicnaan laakiin maamada si ii sheegtay waa aniga arintaas waa gaabsanaa laakiin arinta muhiimada waxa way ciyaalka ma dhahay ani hani ninkaas xariga ku xiran ninkaas waa kala tagay ma dhahay wax walba kaas gadaal aska imaana ani xitaa cadeen muu haytaas in as qawli in ay kala tageen cadeen muu hay laakiin waxaan cadeen u helay in ciyaalka ayada ay dhashay kulli wax walba qoran waa dhaca wax walba adduunka waa laga arkaa dad badan aan arkay dhahayeen wax walba adduunka waa ka arkay nin rag oo uur yeeshtay oo ilmo laga soo jiiday leen la arkaynin saxna way taas wax walba adduunka waa ka dhaca arintana social media ay soo gashay social media wixii soo galan wax qarsan ma aha anigana hal mid aan qoldanahay hal mid aan galin ka bixinaa midaas oo in arintan markii koow ay cusbeed in aan rumaysan waayo ma ku indhaadaytay ma dadka yani runta yani waa ku indhaadayga laakiin Maxamuud ana ku imaadi naagta aan qabto cadeen la'aan waxaan ku dhahay ana qabo ma aamini adi cadeen u baahan tahay Maxamuud oo naagtadan ku dhagoosid maya qalad u dhacaa kulubna aadan qadaa wa khayru khataa'un atawabun ano khaladkaas ogaan u sameeynin araggan inta ka bixina khalad waa gali sababtoo haddii aniga dambi waxaas igu ahaan lahay anoo og aan aamusi lahay wallahi ilaahay il og aniga ma ogeen haddaan ogaan lahay qofka aamusay ma ii arinkan wallahi baa ma idin sheegay familkayga aniga marar badan ay dhaheen Kamaal arintan sax waa ama sixran tahay adi ama lagu sixir ama lagu taatno waxaasna wallahi marar badan ay waxaas ma ana waxa diida wax qiila wa qaala yani waxaas ama tahay waxa og tahay ya aad hubaal iyo xaqiiqi in marqaati u haysan yani adna aad hubin mala sheego waxay noqonayaan xan mafahmay ilaahan ku xisaabtamay hadi ma ogid xaaladda qofku wax ogaan kara dhex taagan mafahmay dad badan waa arkay horta ilaaha dambigeena Allah dhamaanteen marka waxa waaye ilaahayna waxa waa qafuur raxiim waaye laakiin qof hada khalad ka gashay ama wuxuu ahaan ku tilmaantay marka qofkaas ina u tagtay asi oo ogolaasho oo ku cafiyo moogiye si kala muuqo yani ilaahay uu cafinayo ilaahay tiisu ka cafin kara qafuur raxiim marka arinta meeshiisa ku xigta
marka kamaal adig hadda kula gudboon dadkana aa u sheegi kartid horta aniga arintan ilmaha horta hani waa dhashay xaqiiq way taas ayadana afkeeda waa ka qiratay sababta ayuu inkirtay waxaas ilaa hadda aniga ma ogi dad badan ayaa dhahay kamaal gabadhan xaaskeyga waayaas dhahay hadda maxaa samayn doonaa hadda maxaa la gudboon marabi in social media aan ka sheego wixii aniga samayn doono hadda kadib waxaan samayn doono waxaas noqonaa waxyaabo aniga private ii ah wixii ila gudboon diinta ku saabsan ama diinta ku salaysan xaqana aan samayn doonaa marabi social media inaan ka sheego balan waayo anigana weligay xaqaa u istaagaa weligay qof ma dulbin dooni weligay wax oo aniga arko inaas khalad yahay maku indha adeegi dooni sidoo kalena waxan haddii soo baxo hadda hal mid aa gudboon maxamuud qofkan ciyaalka waa dhaliyaal lahay mid kale soo yeeri doonto oo private ahaan isoo gaari doonto waxay noqonaa xarig inaas ku xiran yahay ama ku xirneen wixii aan samayn doonaan ku dhahay markaas diintaas ku salaysan oo fan credit ka ma dad ma yani inta maxkamad ma aha dadaa la leeyahay dadka yani familiga yani wixii la sameyn lahay yani arinta private ahaane laakiin waxa waa la sameynaa insha Allah arintana sidoo kale dad badan ka soo hadleen taasna ogaan daraa u geesi haddii aadan wax ogeyn waxaan kaa codsanaa walaalkay ama walaashay arintana ka soo hadleen adoo si wanaagsan wax ugu sheegi kara yani si qaldan ugu soo hadlay sax waa haddaadan yani ka hadli karinna reactionkaaga ka bixi iska dhaaf waxaan hadda views waaye adduunyo waaye ilbiriqsi waaye sikin waaye waa dhimane isla markii intay kaaga bilaabanay godkay kaaga bilaabanay sax waa marka waxaan damiirkaaga iyo qofka wixii oo isla markaas soo dhaho yani aad ogeyn hal dhinac inaad soo qaadatid isla markaas oo qofkii ay iyo waxa loo joogo inaad kula dilacdid ma wanaagsan wax qof weyn sameyn karo yani hor Soomaaliyeena waa u badanahay yani waa la isku qaadanaa laakiin ma wanaagsan qofka adoo wax fiican u sheegi kara yani ama iskaga aamusi kara maxaa caynay haddana arintana ma dhex joogtid يعني gurigii waxay ka dhacayaan ma joogtid marka maxaa caynay muxuu ka galabsaday marka wallahi aad ugu xumaa taas laakiin waxa waa caafiya waxa waa maadana waa ku celinaa ilaa dambigeena dhaaf cidii si qaldan u hadashay comment qaldan soo qortay cidii reaction qaldan ka bixisay ilaaha arkayo soo marka aan intaas ugu baxaya كمان كسي ورجينا إن شاء الله مركا حضل بدن حام بحشو كلي أنا وحي حقيقة هو أوغاني وحي دبت وحي حق وان أوغاني ما نفعنا أني والله بين بدين شيء علوش وح عنكو خرصنا ما هستي وحان آت أقول حمادي إن أنيجا اللي يقول تلمام قف وح أدونك أقول ليذن ما حكم كيس هذا فاهم لهن حكم كيس هذا فاهم لهن والله ما كنت أقدر لهن يعني ما هذا ويت هل سؤال يعني كفتنا حتى أوقاته قفك يعني هادو سحر ساس باوركاس أسرائيل ضدك آمين سن هادو باوركاس سرائيل بيل جيتس كبدي سما أنا هذا السحر كوكانسل برا صحوة يعني بيل جيتس أما إسكدافة ضد كان تاجرين تقبله هذا ما السحر كوكانسل مرك عقلي عشقي وحلا فهمه معناه هادو قعمانا وحكو قرتوا الوحي حسابنا عربكم الوحي حسابنا والله أنت بدنا أركي كومنتي إيش أخرى كمال ساس إيساس هاي أنا دم بيني هستي وإذا عفية وإذا عفية ما فهم سنين أقال درا يعني أقال درا إدي هيسي ما فهم سنين يعني عافية لكن هذا كدي كبارن دقة مرك إن شاء الله كل فيديو نزول على مرو مهم ده هذا الكيجا أما قرانات هذا الكيجا وحسن قناع حد كدي wax social media arintan imaan doono ma jiro wixii diinta ku salaysan wixii xaq ah ani waan ogahay ana xalsanahay sheekada meesha ku dhamaadi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh